mahad weyna Jamaal Cali Xuseen oo maanta yimi gurigii uu dhashay hooygiisu ahaa aad iyo aad baynu rag iyo dumar baynu soo dhaweynaynaa oo ah madaxweynihii mustaqbalka iyo waqtiga ballaaran ee la socda intaba waynu soo dhaweynaynaa waana guul wanaagsan oo maanta noo bilaabantay suuqsada madaxweyne mustaqbal dooniyo yimi haddaynu nahay dadweynaha suuqsade waxay aad iyo aad waxaynu ugu hambalyeynaa wafdida ballaaran ee inoo timi si fiican ha loo soo dhaweeyo waanaynu ku mahadnaqaynaa maanta haddii uu soo booqday waxay tahay maanta waa maalin aad iyo aad inoogu weyn waxa maanta halkan inoogu yimi nimaanaynu haraba u arag laakiin oo inaga raagay magaciisuna aad iyo aad aniga maskaxdayda wax badan buu soo galay Jamaal Cali Xuseen war hadaba ninka miyaan la arki karin maalin marnaba idin soo leexan waa nasiibkeena hadduu maanta inoo soo leexday aad iyo aad baynu u soo dhaweynay isaga iyo waftiga la socdaaba waxaan leeyahay dabada uu maanta soo maray insha Allah isagoo ka qoreeya waqtigan maanta iyo mustaqbalka aanu la ritayno ilaahayna uga baryayno inuu haddana wadada soo maro oo aanu hadee beed ma dubi soo aragno isagoo madaxweyne yani ilaahay uga ritayno nagaadeen waayo sababtoo maanta fadhi weyn inuu sooriyo iyo waxbaanu weydiinay rag naga maqan oo xagaa nooga soo warinay waxayna socodkoodu waa fudud yahay bay ugu yiraahdeen waxba sooriyo qarasha ku taragelina laakiin anaga noomay wanaagsan taas waana qaadeen madaxweynaha mustaqbalka Jamaal Cali Xuseen iyo wafdida ballaaran ee uu hogaaminayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay deegaanka reer suuqsaday iyo nawaaxigiisa waxaanu leenahay noolow baanu leenahay waxa weeye haddii uu maanta noo yimi oo gurigiisii iyo dalkiisii soo maray waxaanu leenahay waa ku mahadsan yahay isaga iyo wafdiga uu hogaaminayaaba waa ku mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaaha weyne waaxidka isaga dad oo kayda ugu dhufta binaadan ugu ma dhufto إذا كان يدلا وهينو إلى هاي يقول فتم حات راهن إذا كان حات راهن سمعتها الله هلو ما لو قوله هاي سو هو قول كاملومو ما لو قوله هاي سو هو قول كاملومو وما لو قوله هاي سو هو قول كوهاج ورود كلبها حيو بالها كقطمو إلى فاتح هذا علوس فرق كوغلاب وإلى فاتح هذا علوس فرق كوغلاب وإلى ياسين كوها أود كوغواتك أديك يسمع لله كول كينيسا وأديك يسمع لله كول كينيسا وإلى هيبان كو بريه برودكو كاملومو وإلى هيبان كو بريه بليغو كو هاغاك وإلى هيبان كو بريه بالهكا بطو waxaan halkan aad uga mahad celinayaa reer suuqsade oo si miisaan leh u soo dhaweeyay
madaxweynaha mustaqbalka Jamaal Cali Xuseen Jamaal waxaan leeyahay ku soo dhawow waa magaaladaadii waa shacabkaagii waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa reer suuqsade oo madaxweynaha leediin fadhi laydin kama rabee dadaal baa laydin ka rabaa kale waxaan leeyahay reer suuqsadow dee fadhi inooma yaallo Jamaal wuu iska tegiyaa markuu iska tago innagaa isku hadhayna ragba way tashadeene ma tashanaaniyow waa tashanayna insha Allah waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa waftiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Jamaal Cali Xuseen iyo waftiga ballaaran ee la socda ayaan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay qacmo furan ku soo dhawaada dadweynaha bacadka taagan ee soo dhaweynayana aad iyo aad baad u mahadsantiin baan leenahay بسم الله الرحمن الرحيم يمكن halkan joogna waxa weeye tuulada Gugux oo booqasho kooban ku tagay musharax madaxweynaha xisbiga Ucud Jamaal Cali Xuseen waxaan ku soo dhaweynayaa imka Ibrahim oo ku hadlaya magaca afka tuulada Gugux anigoo Ibrahim Maxamed Xayd waxaan halkan maanta ku soo dhaweynay tuulada Gugux ay ku soo dhaweystay wafti ballaaran oo hogaamiyaha musharaxa madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen oo xisbiga Ucud waxaan ahay gudoomiyaha deegaanka ee tuulada Gugux marti kasta iyo wafti kasta oo yimaada iyo xisbiyada qaranka cid kasta oo noo timaado waxaan marka hore leenahay inaanu martiqaadkooda iyo soo dhaweyntooda aanu sameeyno halkan ku soo dhaweynaynaa waftiga uu hogaaminayo Jamaal Cali Xuseen kan uga rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan iyo rajo wanaagsan waxaanaanu ku hadlay magaca tuulada Gugux deegaankeeda waxaanu halkan mar labaad iyo mar saddexaad ayaanu kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawow wadadkaagii waa magaaladaadii waxa weeyaan waa ummadaadii waa lagu jecel yahay aad baan kugu hambalyeeynaa soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad anigoo ku hadlaya afka wafdiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Ucud waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynahan reer suuqsade ee sida fiican ee sharafta leh ee maamuuska leh noo soo dhaweeyay waanaan idinka filin mahadnaqa kadib hadalka kolley musharaxa iyo odayaasha ayaa odhan doona waxaasaan ka cudur daaranaynaa kolley in yaroo odayaashuna ka dhawaajiyaan oo ahaa mootay waa naga raagteen dagaalka marka lagu jiro kolley waxa weeye qofku meeshuu isku hadlaynayo uu isleeyahay laga soo weerari maayo wuu dambaysistaa xaggeeda ma eege xagga meelaha uu cadawgu kaga imanayo iska marka idinka waanu isu kiin haleynaynay waxaad tihiin dhufayskii aanu maartay ku dagaalgelaynay baati marka idinka waan isku kiin haleynaynay meelaha kalena hawlaha ka soo maamulaynay laakiinse qalbigaan idinkala joognay waa ogtiinoo meesha siyaas waxaa jira saddex xusbi baa ka jira waddanka anigoo meelaan ragga hore ka hadla maan ka hadlaya oo ka duwan saddexda xusbi mid walba dadkiisa ayuu isku haleynaya iyo deegaanka isku haleynaya xusbigan aanu wadana Ucud la yiraahdaa saddex rukun buu leeyahay in cali waraaba waa rukun Jamaalna waa rukunka kalena waa ninka Jamaal ku xiga weeye Cabdirashiid Xasan Mataan weeye qofka dumar haddii dheeri karna carruurteedu karinayso oo dheeriga saddexda dharaar mid gaaban yahay ciiro raashigu wuu qubanaya Soomaa waddag haddii reerku saddexda dharaar haddii mid ciiro gaabto miyuu joogay soo dhici maayo labadii dharaar ee kala wadhisan yiin kiina yuu ciirin aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa xusbi ahaan Ucud anoo ku hadee musharaxuna uu inala fadhiyaa uu iga dambayn doona tacsi marka hore waxaanu xusbi ahaan aanu u diraynaa dadkii uu ka geeriyooday waxa aanu fariin u diraynaa xukuumadda Siiraan iyo hogaamiyo si degdega oo bila shuruuda inuu ku soo daayo cuqaashi salaadiintii madax dhaqameedkii kale ganacsatadii guryahooda laga soo guray ayaanu leenahay si degdega waa in xorriyaddooda loogu soo celiyaa Jamaal oonu kaftanaayo aniga ayeeday cibaado cabdi xundurteedu halkan ka soo jeedaa
awow baan idhahaa bal hadda inageedee marka waynu soo soconnaa maanta waxay naga ahayd aynu soo salaanna xaafaddii bilaawow inowadi marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida sharafta leh qaayaha leh qiimo leh nagu soo dhaweyseen maanta sharaf bay tahay inaan idinla joogo deegaanka suuqsade oo runtii in badan laygu canaananayay maxaad u tegi weyday suuqsade ilaahay baan horta qadaray oo inaan maanta imaado intaas oo dhan ee aan halkaa idin garab marayay horta xaal ka qaata aniga suuqsade waxay igu dambaysay anigoo inaan yara ayay igu dambaysay markii aan awowgay oo faarax la joogay sheekh la joogay aan inanka yar ahaa iskuulka ka bilaabay sheekh ayaan marmar halkan aan iman jirnay anigii awowgay allah u naxariiste marka deegaan ay suuqsade ay bari hore igu dambaysay ayaa weeyaan laakiin marna qalbigayga kama idaan maqnayn mar walba taageero waan ogaa inaan ku haysto deegaankayga sidaa uu aadan yidhina aadan cali yunis dee marka aad dagaalka ku jirtid meelaha aanad maaragtay aanad ka baqanayn inta badan cagta ku badan maysid iyo isha toona meelaha kale ayaad dee aad iska eegaysaa aad doonaysaa inaad dadka dee taageero aad ka raasatid oo iska dhaadhicisid waxaan siri dee koley suuqsada deegaanka suuqsada adigoo yar baa lagaa garanayay mise waaba adigoo weynaaday iminka bal meelaha kale dadka kale hortaysa soo bar ilaa nin madaxweyne qaran ah doonaya inaad dalkan ka noqoto ayaa tahay marka waan ku faraxsanahay maanta inaan ilaahay qadaray inaan idiin imaado way igu adkaan lahayd aniga hadhow tole inaan maalinta doorashada idiin imaado oon idhaahdo maanta maan cod idinka doonayaa anoo aan idiin iman marka hore way igu adkaan lahayd laakiin waan ku faraxsanahay ilaahay baana kulligiin idinku mahadnaqaya sida sharafta leh ee qiimaha leh qaayaha leh ee aad kulligiin sida laxaad kale aanan filanayn ee aan idinku nimid marka hore waxaan islahaa inuu suuqsa inta tagaan shaah la soo cabo dadka soo salsalaama laakiin maanaan filanay in noqonayso xaflad weyn oo qiimo leh oo ilaahay baa qadaray ninkii odayga ahaa halkan awooyaashay oo dhan garanayay ee kullu aadan xasan ee kulligood xolo soo wada cunay horta waa adagtay si loo helo nin awooyaashaas oo dhan wax la soo wada cunay inaad heshay marka way adagtay inaad hesho xayaday xuseen xasan badmaax waa nin salaxle ka soo jeeda iyo hargeysa marka uu odhan jiray waa runtii war ayeydaba anigaba suuqsada ka timide maxaa aynu marna u tegi weyne marka waan ku faraxsanahay waana soo kaciyay waxaan nimadan imikaynu tegaynaaye ayaynu tegaynaaye ina mari ayaan maxamed nuur halkanuu idinka canaantay anigaa ku lahaa ka yara daayo wax kaloo may lahayn kol haddaan idinka soo raagay in haddana canaan idinku daro dee may ahayn yaa oo sababtaan u lahaa kada taasay ahayd wayna fiicantahay oo wuxuu idin canaanaya waa wax dana oo wuxuu islahaa marka lagu canaanto waa wax wanaagsan oo ka sii kordhi qof dankaa leh ayuunbaa ku canaanta oo doonaya inaad ka sii kordhaysid waana wax wanaagsan weeye faraska usha waxaa loogu dhiftaa inuu ka sii kordhiyo orodka marka taasunbuu idinku dhufanayey aan ugu dara in yaroo kaftana maxamed nuure halkii uu yidhi maxay ahaday qolooyinka kale ilaa ucud halkaas nambarkaasi geli jirtay oo marka hore tiriiga gashay aniga maalin dhexdaasuu nini weydiiyey oo uu yidhi maxaa dhacayo nin yar baa i weydiiyey oo wariya markaasuu yidhi dee xilligii nambarkaasaa gasheene xilligii doorashadii golaha deegaanka waxaan ku yidhi waryaahe annagu waxaan rumaysannahay somalilan dhanna og yahay ilaahayna og yahay inaan annagu nahay xisbi qule cadaalaya ee cadaalad ku soo baxay iyadoona la reebaayo yaa oo codkooda uu xalaal yahay laakiin labada xisbiga kaleeto dee way iswateen oo way isku shubanayeen marka way isu gacalmiisayeen oo kolba dee baha lagu shubanayo ahaa marka annagu dee bahashayada annagaa waa u haysan inaan annagu wanka gallay ee nalaga dhacay oo qoladan lanaga shubanayey yaa
oo lagaga shubanayay yaa marna waa lagu shubtaa marna waa laga shubtaa inta taayadana laga shubtay ayaa toodina ay ku shubteen laakiin waxaan leeyahay maanta Somaliland insha Allah doorashadaas soo socota in ilaahay dadka Somaliland kala badbaadiyo oo guul ay ku dhamaato cidii hashaba inagu calafkeenan ka qaadaynaa waxaani qadarkan ilaahay baa qoray arshiga ka qoran tahay weligeeba cid hadam damlayso weligeeba kulmiye hays wareeriyo arshiga hadaanay uga qornayn ilaahayna waa caadilo woog iyo kulmiye dambigu geystay ilaahay waxaan umanayaa waa caadilo inagu soo cilmaayo kulmiye inagu soo cilmaayo labada xisbiga kale ee mucaaridka ee aan iyagu loo dhiibin cidii ilaahay uu gartay arshiga uga qoray in baan u arkaa anigu inay helayso sanadkan maanta yaa xisbiyadana waxa la inoogu sameeyay in qabyaalada la kala ilaaliyo in reeruhu ay cid walba xisbi ay gasho oo ay dadku kala qaybsamaan ayaa la inoogu sameeyay laakiin waxa nasiib daraa in xisbigii dhamaa ee talada hayay isagii qabyaalada inoogu kala qaybiyo oo inta shirkoodii weynaa ee shirweynihii la isugu yimaado halka inta board lagu qoro la yiraahdo reer hebel ba halka fadhiya halkaasna siyaarooyin reer hebel halkaasay fadhiyaan hadda waa xisbigii dhamaa ee qaranka waa daahir ya shams baashi oo qabyaaladii oo loo soo cumaamaday ayaa oo far waaweyn lagu soo qoray ay kulmiye horta inoo leeyimid waa waxa laga xishooday weeyaan waxa anigu horta fariinta halkaan ka diray maanta ila fariintan maanta waa television baa laga duubaya waxaad ogaataa wax taariikhda galaya maanta safarkani waa safar taariikhda galaya iyo qodbadahan iyo waxaan halkaan ka leenahay maanta waxaan leeyahay war boobkan hantida qaranka ee lagu jiro ee uu kulmiye ku jiro ee isku laba rogayo war hooy ha jooji waxaan dad yaraa leh masaakiin leh carruurta masaakiinta in caafimaad loogu sameeyo oo dhakhaatiir meel walba loogu dhiso oo iskuul loogu sameeyo oo future ay yeeshaan shaqooyin loogu abuuro ayaa loogu talagalay laakiin rag waaweyn oo boob la soo istaagaya anin yaro kaftana ku darsaday bar waxa la yiri nin sheekho ayaa isagoo inta badan wuxuu ka wacdi jiray masaajidka oo markaas uu oran jiray aakhiro wuxuu oran jiray nin walba wuxuu xado ayaa dhabarka loo saaraya maalinta yoomal qiyaamaha barigii dambe sheekhi laftirkiisii baa ayaa dawladda wax dhex galay markaas gaari garanda la soo siiyay gaari garandii la soo siiyay isagoo wata ayuu nin kamida qolooyinkii uu wacdi jiray ayaa arkay si warayaa sheekho waadigi barigii nagu yiri nin walba aakhiro wuxuu xalaa dhabarka loo saaray adiga gaarigan garandaha dhabarka lagu saaray ila waa ka garandaha watee garandana mu wada jirin war waxaan leeyahay reer kulmiyo haamaha ayaan dhabarka laydin saaraya maanta yooba qiyaamaha haamaha yaan dhabarka laydin saaray waa wax arrin waxa way fool xun weeyaan waxaan leeyahay anigu dadka reer Soomaaliland dul ha isku yeeshaan maanta meel xasaasiyan maraynaa qarannimadeennii baa la doonayaa in la wiiqo dadka la doonayaa in la isku diro dadka la doonayaa shakil laga kala geliyo maartay arrin reer Soomaaliland dadka reer awdal oo kacsan bariyahan dadka reer awdal ee bariyahan kacsan waxaan leeyahay walaalayaal Soomaaliland waa ogtihiin oo idinka utunteeda aasaasay boorama haddii maalintii shirkii aydan ka qayb gal lahayn oo aydan dadkii istilayay iyo heshiiskii aydan ka qayb gal lahayn maanta Soomaaliland halkaas ma joogteen wixii aad dhisteen ayaa la idinka doonayaa inaad samar u yeelataan xukuumadani waa xukuumad tegaysa doorasho la gali doona insha Allah ninkii doonayay ninkii diidanba doorasho waa la iman doontaa farta lagu codeynaya dadka reer Soomaaliland fartooda ayaa khayrka iyo sharka u haysa war intaas samar baan leeyahay inaga farteena ku tuuri doona cidaynu doonayna farteena ku keeni doonee walaalayaal samar baan leeyahay siyaasadda ciyaara walaalayaal waxa weeye reer awdal waa la idin juqaynaya ogaan baana la idin juqaynaya reer barbar waa la juqaynaya reer Hargeysa waa la juqaynaya
arrinkan kulmiye ee wareersan ee iyaga doorashadooda dadkii ay ku mashquuliyeen iyaga dhexdoodii bal imika reer haddaad imika Hargeysa tagtid Hargeysaanu ka nimid waxaa bad moodaaba qolooyinkan kulmiye u cararaya dalka waxa ka socdaba kama warhayaanba iyagaba madaxweynayaal isu haystaba waxay isu haystaan kii kulmiye ka soo dhac baxa inuu automatic madaxweyne noqonayo kulmiye dalku wuxuu ka geystay dambigu ka geystay in iyaga dumadooda tahay kuwana kulmiye u tartamaya kama warhayaan halka ay istaagan yihiin ee dadka la dhibayo ee aanay ka hadlaynin xatooyada la xadayo ee aanay ka hadlaynin war makaasa federaalkan la tagay ee dadka maartay Soomaaliland qadiyada Soomaaliland lagu dhaawacayo ee aanay ka hadlaynin daadarka kulmiye ninka inta ka hadli waayay makaasa madaxweyne loo dooran karaya ama mowqif adag yeelan kari waayay nin noqon waayay war dadku idinka warhaya waxaan leeyahay idinka isku duubnaada walaalay nabadana waa in la ilaaliyo nabaddu sida loo burburiyaa waa si aad u hawl yar sida loo dhisaase waa aad iyo aad bay culustay waad ogtiin wixii na soo gaaray iyo halkinkaynu soo marnay taasi laakiin macnaheedu ma aha nabadda ayaad wax walba ku ilaawaysaanoo oo gacmaha laabanaysaanoo oo wax walba waa ka aamusaysaanoo oo dhagaha furaysanaysaan yaa taasi macnaheedu ma aha waxa weeyaan حق بأولادين وحي عادين أتكهذا يدينكم فرح كهذين أفكار كهذا يدينكم فرح كهذين يدينكم أن تجعلمين يدينكم أن ربشت كعينين حداد مظاهرات سمعنا إنسان حتى مظاهرات سلمية أي ضد كسرينية لكن ولي جد نبضة حلينا إلى عليه نبضة والشيء قالية وشيء مهمة وشيء أين سومال لا يكون صنطة دلكن سومال لا أركيسيد وحي أجاري كرويدي مقدشو يا صوماليا وحي أي لعق عالم كوسيي billions of dollars ka ciida ka badnaa wixii ay secure garin kari waayeen ay reer Soomaaliland si fudud sameysteen dalkeenu waa dal isku filan inaga ciidankeena mushaharkeena siina inaga shaqaalaheena siina caalamku inala yaabiye qoladan kale waxa weeyaan ilaa ninka xildhibaanka mushaharkiisa waxa caalamka siiya dibadda laga siiya dalkii dhammaay Soomaaliya haddana waa nimanka ay noo faanaya inaga ina sheeganaya ee leh aniga inaga midii doorta waxaan maanayaa bar horaan ku yiri war hadaa anaga iska kaaydeyn lahaydeen oo aad xaasidnimad naga deyn lahaydeen si aan anaguna u shaqeysano idinkuna waa ciishi lahaydeen waa hagaagi lahaydeen laakiin waxa la hagaagi lahaydeen baari uqdada xunaad noo haysaan anagoo wanaagini hayno oo aan dhibaataydi hayn oo anagu taayado anaga mashquulisay sidan dalkayga iyo waxayga u dhisano ayaa idinka tiini ayaa waxa nagaga mashquushay annaga nagu soo mashquushay marka waxaan leeyahay iyagana dadka Soomaaliyeed Ilaahay waxa uu uga rajeeyay iyaga laftirkooda hoggaan xumo iyo siyaasad xumo ayaa iyaga laftirkooda haysata inaga yara dhaana xoga laakiin iyaga dhibaato weyn baa haysata Ilaahay iyagana culayska ka dul qaado laakiin waxaan leeyahay anu qadiyad go'aan baan gaarnay qadiyada Soomaaliland baan doonaan ka mid dhalino insha Allah la khayr bayno noqonaysaa walaalayaal bacad baa joogtaan waxaan aad iyo aad uga ducaynayaa dadka reer Soomaaliland ee dadka abaaruhu in Ilaahay roobkii noo keeno Ilaahay roobkii ha inoo keeno Ilaahay dadkeena dulqaad iyo wanaag iyo maartay isku duubnaan Ilaahay dadka isku abuuro ayaan leeyahay idinkana waxaan idin ducaynayaa deegaanka suuq sida waan u ducaynayaa in Ilaahay idinkana bashbash iyo barwaaqo Ilaahay idinkana idin siiyo deegaankan waan jeclaan lahaa iyadoo xilli ay roob inaan imaado insha Allah waan iman doonaa waan idin helayaa insha Allah waan idin helayaa waxa dhacday weligay horta mar baan roob ku duceeyay markiina roobkii Ilaahay waa nagu asturay barigii doorashadii golaha deegaanka ayaan daragodle marnay halkan daragodle markaasa maalintii baan ducaynay dadkii baa yiri magaalada waa roob doon baan doonaa noogu ducaysaan waanu ducaynay oo aad baan u ducaynay isla galabtii ku dhuftay roobkii 4 sanadood ka mudayn roob marka barigii dambe ducadii igu badatay oo nin xisbigayga kamid ay dacaydo wuxuu war sidii ducadii looga aqbalayba ducadiisi baa farabaatay ducadiisi ayaa farabaatay maantana waa idin ducaynayaa baad ilaahay kulligiin aad iyo aad baan qalbiga idinka salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh